dadkan waxaa soo barakiciyay kadib markii webiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyay deegaanadii ay deganayeen. Intooda badan waxay ka yimaadeen magaalooyinka Beledweyne iyo deegaano hoostaga magaalada Jowhar. qaar ka mid ah dadkan oo ay la kulantay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ka codsanayaan gargaar dhan kasta ah. dad Beledweyne soo qaxnay ay horwada soo qaxay biyo soo barakayana wax si arabnaha soonka wax soo dhibaan soo daruufan keent waxaan si u baahanahay meeshaan goorma timid halkaan mar dawle imaad labadaan baranjida ku soo jira dumar dawle imaad ma dhulka soo marteen oo soo lugaysan miya sagaalida soo raacday luq le meesha ka timid maama Oli Jowhar ka timid miya sababtu maxay tahay dhibaato adduunyo haye baahina hayta dhib adduunyo min yar wal ku bariyo hayna hanin tali hawal nin haytan biyana suuqi webiga ku tahay miya haye ilaa iluuq joolo waa soo lugeyneen baawur dadka muslimiin ma soo saareen haye dadkii hadda inta sidii madaxooda ku imaanay sababta xamar u soo mixin bidan maxay tahay marka biyahaas ka carleena baahi iyo biyo wixii dhan aan iska qabtay cali macalin Cabdullaahi iyo maamo Aamino oo kamid ah dadkan ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabaha ugu daran oo ay hadda dadkani u baahan yihiin iyo xilliga ay soo gaareen magaalada Muqdisho. dadka halkan ku sugan waa dadka Shabeellaha dhexe ka yimid oo Hiiraan ka yimid oo aad u tabaalaysan oo mataqaanaa Hiiraan ina luuq jeelow ilaa iyo bahashi ka yimid janta ka yimid dad aad u dhabaataysan waaye oo Hiiraan ka yimid oo luuq jeelow ka yimid oo lili qatar ka yimid intaas way dadka meesha fadhiyo waana dad aad u dhabaataysan biyaa nagu soo fatahay meelaan ka baxna male ebel colaadana gashay guryaheena waa la gubay xoolaheena waa la dhacay haddana biyaa nagu soo fatahay markii wax aadunay oo wax toosisnay oo markaan deegaana noqoteen waa fiicnaateen dhahnay webiga inta iyo xagga bari oo raxsan nagu soo fatahay meelaan ka baxnana male sansiyeer ma haysano waxaan cunno ma haysano beerihii soo shangalsanay oo galeeyda ku taal oo sisinta ku taal oo nyaanyada ku taal biyaa naga fadhiyaan intii ay wadada ku soo jireen ayaa carruurta qaar ka mid ah ay dhinteen kadib markii dhibaatada haysatay ay sii siyaaday meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa waxaa ka codtay roobabka waxaana taas ay sababtay in gobolada Soomaaliya ay webiyadu ka maraan ay fatahaad sameeyaan taas oo keentay in dadkii deegaanadaasi ka ag dhawaa ay isaga barakacaan. Ali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.